kulanto waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada dalka media qodobada maanta ugu doorroon waxaa kamid ah madaxweyne farmaajo oo ambabaxay magaalada Pretoria agaasimaha cusub ee Madaxtoyada Soomaaliya kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Xalinta Maleshiyo Beled ku dagaalamay gobolka Mudug oo bilaabatay Mareykanka oo faahfaahin ka bixiyay duqeyn uu ka fuliyay gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ku dilay saraakiil salsare oo AL-SHABAAB akhbaaraadka dibadda waxaa ugu doorroon Theresa May ra'iisul wasaarihii Ingiriiska oo shaacisay iscasiladeeda qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan dalka media daawadayaal balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada Pretoria caasimadda dalka Koonfur Afrika madaxweynaha ayaa halkaasi u qayb galaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa oo ku martaqaaday xafladiisa qaar ka mid ah madaxda caalamka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa intuu ku sugan yahay dalka Koonfur Afrika wuxuu kulmo la yeelan doonaa hoggaanka dalkaasi wafdiga madaxweynaha ee ka qayb galaya munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Danjire Axmed Ciise Cawad iyo agaasimaha guud ee Madaxtooyada qaranka agaasimaha cusub ee Madaxtooyada Villa Soomaaliya Dr. Nuur Diriye Xirsi ayaa maanta oo Jimcaha la kulmay Danjiraha Mareykanka ee Soomaaliya mudane Dolayamoto kulankan ayaa labada dhinac waxay uga hadleen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo taageerada ay dawladda Mareykanka la garab istaagan tahay dawladda Federaalka Soomaaliya ee uu madaxda ka yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lama yaqaan sababta ay u kulmeen agaasimaha cusub ee Madaxtooyada Soomaaliya iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya u fadhiya Dolayamoto iyadoo dawladda Mareykanka lagu eedeeyo inay dawladda Soomaaliya ay ku taageersan tahay khilaafka u dhaxeeya mucaaradka iyo maamul goboleedyada iyadoo dawladda Mareykanka shirki ka dhacay magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ku taageertay qodobada ka soo baxay dawladda Soomaaliya maalintii talaadada ahayd ee toddobaadkan ayaa waxa uu dagaal u dhaxeeyay laba Maleshiyo Beled waxa uu ka dhacay deegaan hoos yimaada degmada Goldobag ee gobolka Mudug kaas oo geystay khasaare dhimasho dhaawac leh maleeshiyaadkan dagaalamay oo ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa dagaalkooda waxa uu sababay dhimasho dhaawac iyadoona dad kala dilay ay kor u dhaafayaan ilaa iyo 4 qof halka tirada dhaawacna intaasi ay ka sii badan yihiin mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socda maamulada labada dhinac ee Galmudug iyo Puntland iyo odayaasha dhaqanka ayaa gaaray halka dagaalka ka iyadoona ka bilaabay waan la isku keenayo labada dhinac ee ku dagaalantay deegaanka hoos yimaada degmada Goldobag ee gobolka Mudug dadka ka qayb galay kulankaasi ayaa warbaahinta waxay u sheegeen in kulamada dhacay ay ahaayeen kuwo hordhac ah ha yeeshee maalinta Axadda uu furmi doono shirweynaha lagu dhexdhexaadinayo Maleshiyo Beledka ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Goldobag deegaanadaasi waxaa inta badan ku soo laabta dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyadoona dagaaladaasi la sheegay inay salka ku hayaan aanooyin qabiil war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya saaxiibadooda Soomaaliya ay 22 bishan duqeyn dhinaca cirka ay ka fuliyeen deegaanka Beled oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose isla markaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan AL-SHABAAB weerarkaas ayaa Mareykanku waxa uu sheegay inay ku dileen 2 xubno oo ka tirsan AL-SHABAAB isla markaana dadka ku dhibaateyn jiray dhulka miyiga ee deegaanada Beled oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida uu sheegay agaasimaha sirdoonka u qaabilsan qaaradda Afrika sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan in duqeyntaasi ay waxyeelo ku noqdeen dadka rayidka isla markaana ka agdhawaa duqeynta halka ay ka dhacday Mareykanka ayaa sanadkan 2019 waxa uu kordhiyay weerarada dhinaca cirka ay la beegsanayaan saldhigyada ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waana duqeyntii 48aad ee sanadkan kaliya uu Mareykanka ka fuliyay gudaha Soomaaliya waxaa maanta Jimcaha ku dhawaaqay inay xilka iska cashisay ra'iisul wasaarihii dawladda Ingiriiska Theresa May kadib markii ay kulan la qaadatay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigeeda Theresa May ra'iisul wasaarihii Ingiriiska ee maanta is cashishay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay cadaadis kala kulmaysay qorshaha Britain ugu baxaysa midowga Yurub oo lagu dhaliilay xukuumadeeda
hadal kooban oo maanta warbaahinta siisay ayay ku sheegtay in dadaal fara badan ay samaysay si qorshaha dawladda Ingiriiska ee midowga Yurub ugu baxdo balse ay ku guuldareysatay hadda way caddahay in waxa ugu wanaagsan dalka ay tahay in ra'iisul wasaare cusub uu hogaamiyo sidaas darteed waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaan iska casili doono hogaaminta xisbiga laga bilaabo 7 Juun ayay tiri markay iscasilaysay Theresa May ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa xilkaasi qaadatay sanadkii 2016 kadib markii uu iscasilay ra'iisul wasaaraha iyada ka horeeyay guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen dalka media intaan warkaan Kulan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo